kulanti wacan daawadayaal waxaad ku soo dhawaadaan barnaamijka Nitaxana ahay oo aan u hadlaynay isbedelada horumarineed ee magaalada Cadaade ee gobolka Galgaduud ay sameysay 10kii sano ee ugu dambeysay. Qaybta labaad ee barnaamijkeena waxaan ku eegi doonaa isbedelada dhinaca biyaha ah ee magaalada Cadaade ee deegaanada kale hoos yimaada ay sameeyeen. In ka badan 25 ceel biyood oo ah kuwa wareeg lagu qoday ayaa ku yaala Cadaade iyo nawaaxigooda. Sidoo kale waxa ay ku shaqeeyaan habka casriga ah ee solar system ama ka faa'iideysiga cadceedda qoraxda. wadaniga halgamayo horar weerara jira wadaniga halgamayo ardan kula socda jira wadaniga halgamayo horar weerara jira استعمار وهيشي بدون قري سبتاجرة 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 horay aniga inta aan gudoomiyaha oo ahayn maamulkeeda iga horeeyay wax badan deegaanka ka hirgeliyeen laakiin anigu waxaan tirkoobkooda hayaa intii aan joogay intii ka horeeyay marka waxaan rabaa hadda inaan idin la wadaago wixii ku kordhay oo ceel la qoday kuwa hadda la qodaayo ceel la saaray soolaro intaba inaan la wadaago dayactirka ceeshu hadda wax iska joogtaa waayo ceel aan 2 jeer iyo 3 jeer la dayactirin inta aanu mas'uuliyadda hayay ma jirin laakiin taasi ma ahan wax weyn waxa weynaha laba arrimood ayaa dhinaca biyaha aad ugu kortay deegaanka aniga markaan gudoomiyaha noqonayo deegaankan kama jirin hal ceel oo solar leh horta kama jirin hadeerna inta ceel solar la saaray waliba dhamaantoodna ay degmadu in la saaro sabab oo ahaydna hadeer aan idin tiri doona inta hadeer u diyaarsan oo rabo sanadkan labada bilood soo socota in la saarana iyagana aan idin sheegan rabaa inta ceel la qoday oo boor hoolaha markaas ka bacdi la qoday ceelasha dadku Soomaaliga u yaqaanaan fiig la qodayna inaan la wadaagan rabaa inta diyaarsan oo hadda lagu jiro ama birtu inta ku go'day laga tago iyagana hadda la diyaarina iyagana aan idin sheegan rabaa waxa ceesh hadda meesha ku taalaahay deegaanka ku taalaahay waa ilaa 25 ceel degmada Cadaado ay ka kooban tahay marka 13 intii anagu aan mas'uuliyadda hayaa laga hirgeliyay degmada Cadaado iyo nawaaxigeeda 12 kale way iga horeeyeen waxa ugu horeeya inta aanu joogay ceelka leela Farjano oo magaalada Cadaado meel kamid ku yaala oo dhinacaas qorx ka soo baxay ka xiga waxa kamid ah ceelka leela Horyaal oo dhinacaas qorx u dhaca magaalada Cadaado ka yaala oo hay'adda leeyahay ay qoday NRC waxa kamid ah ceel kale oo asna leeyahay Harqaboobe oo dhinacaas galbeedka asna magaalada kaga yaalo hadda la qoday oo shirkad ganacsi ay qodatay waxa kamid ah ceel leeyahay ceel baraf oo asna magaalada Cadaado agteeda ku yaala oo magaalada dhexdeeda ku yaala dhinaca hogol agtiisa ku yaala ceel labaad ay hirgeliyeen waxa kale oo kamid ah boodo dhowr ceel laga qoday oo ka tirsan degmada Cadaado Xinjilab sidoo kale ceel laga qoday dibira ceel laga qoday gidheys ceel laga qoday baliguuled ceel laga qoday armoolay sidoo kale ceel laga qoday baxdo sidoo kale hal ceel laga hirgeliyay waxa sidoo kale ceel laga hirgeliyay qaayib ceel laga hirgeliyay waxa sidoo kale ceel kale laga hirgeliyay dhagax dheer 13 kaas ceel waa ceelasha hadda shaqeeya ee lacabo shaqeynaya markii intaan maamulkeena aan shaqeynayay deegaanka laga hirgeliyay waxna dad ganacsata aan u fududeynay inay hirgeliyaan waxna hay'adaha samafalku ay hirgeliyeen intaas oo ceel ayaa deegaanka ku soo korortay oo hore uga jirin sidoo kale waxa ogtahay 2 ceel oo iyaguna galbeedka waxa jira oo shaqo ka socoto qodob ka socoto ayagana wali ma hirgelin inta la ka 13 kaas ka hirgashay marka 13 kun hadda way shaqeeyaan marka intaas waa ceelasha hadda la qoday oo shaqeeya waaye deegaanka ku soo siyaaday waxaan kala rabaa inaan ka hadlo ceesha solarka aan saarnay oo dhammaantood solarka la saaray
oo horay hal ceel oo solar la anaga ugu maana imaan mashruuc waxa jira galmudugta laga qabtay oo World Bank qabtay oo degmada Cadaado bis la siiyay markaan mashaariic badan ku guuleysanay oo 10 ceel solar ah kugu saaray oo 10 ceelna dhamaantood aan ku guuleysanay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya wasaaradda maaliyadda galmudug iyo maamulka degmada Cadaado iska kaashaday marka mashruucaas markii ugu horeeyay ka bilownay iyo hal mashruuc oo yar oo ka horeeyay IRC oo ceelkan hogol noo saaray marka inta hadda ceel ay saaran tahay waa 13 ceel ceelka ugu horeeya waa roob daay waa ceelkaas magaalada dhinaca laga soo galo ceelka labaad waa hogol ceelka kale waa wakaalada ceelkii loo yaqaan dawladda hore ay uga tagtay magaalada Cadaado ceel kale waa ceelkan horyaal qorrax ku yaala oo NRC ay qodo asagana soo la saaray labada motor labada ceel ee ku yaala godin labada soo la saaray midna motor cadda loo yaqaan midna motor madow loo yaqaan cada kiir sidoo kale solar la saaray bowda hore sidoo kale solar la saaray 10 ceel ka faa'iideystay kamid ah ceelasha antenna inta badan iidoole solar la saaray biyo guduud solar la saaray galinsor ayagana solar la saaray baxdo hal ceel solar la saaray gidleys ceel solar la saaray marka hadeerna waxa solarku u diyaarsan yahay oo hadda insha Allah ceelka Ducley iyo Xinjilab oo ku xiga labadaas ceel hadeer barnaamijkooda Ducleyna waa gabangabo Xinjilabna insha Allah mar la guda gali doona marka waxay noqonayaan 14 ceel ay noqonayaan markii la isku daro ceeshan labadan marka lagu daro 16 ceel waa ceesha oo solarada helaya insha Allah oo laba hadda ay saheli 14 hore waaye marka intaas waa horumarka guud ee ku siyaaday dhinaca biyaha markii hore oo ceesho aysan helin ceesha hadda waxa wali ugu sameeysan ceesha kuwana miyiga ka qodan yihiin kuwa magaalada ka qodan yihiin kuwa miyiga ka qodan dadku dhibay ku qabeen qofkan motor ka cinayay shidaal ku baxay dadka baadiyaha ka imaanaya dhibay ku hadda markii la saaray solarka maalintii oo wax motor ma la daarayo waxay mashina ma la kicinayo biyaha dadka reer baadiyaha dadka reer miyiga xoolo biyo laga gado hadda lama yaqaan qof biyo laga gado lama yaqaan laga yaabay booyad martimaada in laga gado ila biyo waa iska socdaan waa laga faa'iideysanaya dadkii beeraha ay u isticmaalayaan baadiyaha foga qofku inta tuba iska jiito ayuu geysanaya marka horumar weyn laga gaaray magaalada kale markii la helay inkastoo hadda ceesha magaalada ay soo wada lahayn ceeshii heshay ka faa'iideysatay biyihii aad u dhimeen dad badan xarumaha danta guud oo dhan waa galiyeen masaajidiyada xarumaha maamulada qof kasta oo dad masaakiinaha fara badan waa maradii la helay solarkaas wax badan dad ka faa'iideystay inta dhiman hadda waxa Cadaado gudaheeda waxa dhiman ceelkan ceel baraf iyo ceelka la yiraahdo Farjano iyo harqawe baa dhiman saddexdaas ceel ayaan la saarin saddexdaas dan saarno hal qiimo ayaan u geeylahayn oo dadku ka wada faa'iideysto marka waxaan leeyahay dadka si aad iyo aad ay barnaamijkan lagu guuleystay waxaan ahay Cabdirasaaq Al-Cadaala la soco qaybta saddexaad ee barnaamijka maanta xanaa ah oo aan ku eegi doono isbedelada magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug ay ku tallaabsatay 10 sano ee u dambeysay